والسلام عليكم والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنكون بلابي يا مقع إلهي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله والنعمة وكيل. حسبنا الله والنعمة وكيل. حسبنا الله والنعمة وكيل. إلى هذا نكتوكل. إلى هذا نكتوكل. ايوه والله مسيتين مفاعنتين محال هيا والله ليلة ما انت waxaan doonay inaan ka hadlo taanigu meeshan waxaan u soo galay arintii ilhaan baan u soo galay anigu mana taageerin mana ku macaaradin ma garat sababtoo ah deena keenant way sameeyeen anigu Axmedna waa iyo ilhaan way isku kaymid horta guriga waxay ku qurux badan yihiin inay dhisnaadaan anigu ilhaan waxaan jeclaa gurigeeda iyo reerkeedu inuu dhisnaado inankaasu qabo Soomaaliga ma sha Allah laakiin haddii qadar Ilaahay yimay calafkoodu kala dhamaaday oo ay nin guursatay waa u hambalyeynaya laakiin markii hore waxaan ka jeclaa in aan guriga hore inaga dumin guriga hore inuu inoo dhisnaado oo inaanu inaga dumin baan jeclaa laakiin haddii qadar Ilaahay yimay inanka calafkoodu kala dhamaaday oo inantii nin guursatay waan u hambalyeynaya sababtaan ugu hambalyeynaya waxa weeyaan inantu ninka hadday wada sheekaysteen ma iskala socon lahayd inay guursato ma waa inay guursato weeyaan ninkaas inanta waxa la yiri ninku anigu saan sheekada ku maqlay ninku waa muslimayba ninku waxaan maqlay anigu wuu muslimay ma sha Allah hadduu ninkaasu muslimay inantaasi guul bay soo hoysay guul ayay soo hoysay masaajid qof dhisay oo kale weeyaan ma sha Allah qof masaajid dhisay oo kale weeye qof dhan uu daraadeed ku soo muslimay wax la heli karaba maaha ma sha Allah waxaan sheegayaa dadka caayaya ilhaan ee maagayo inanteena kaliya sharafta leh ee Soomaali magaca u soo hoysay ee waxaan ku ri Congress-ka ina geysay ee muslim oo dhan Congress-ka geysay ee iyadoo hagoogan xijaabkeedii Congress-ka ku gashay ceeb ay leedahayba ceeb ma laha caytoona ma geedo nin ha guursato mooyaane dooqeeda ka helay inankiiba uu guursaday ma sha Allah meeshiisa Allah ugu barakeeyo isagana Soomaad garan inantii way guursatay nin baa guursaday inantii anigu Axmed waa nin adeerkaya macnaha waxaan jeclaan lahaa mar walba waan u sheegayaa waxaan jeclaan lahaa in gurigeena hore inoo dhisnaado laakiin haddii qadar Ilaahay yimi oo labadii qof calafkoodii kala dhamaatay nothing oo mid walba nolol cusub samaystay yaa qof waliba nolol cusub samaystay inaynu inantii cayno maaha oo inantii nidhaahno nin bay isguursatay keentay inantaasoo cayma leh baan ku yidhi she very good waan taageeray anigu halkaasaan ku taageeray laakiin waxaan ku taageerayaa ninkaas ma sha Allah forever muslim ninkaas waxa sida sheekada ku maqlay waa muslimay ninkaas baa leeyahay waa nin muslina sharaf iyo aabaheed baa bixiyay family-geedii baa bixiyay ma sha Allah iyadoo xaflad loo dhigo loo ciyaarayo waan arkay Soomaad garan Ilaahay waxaan uga baryayaa mid maaragtay ku nasto ku degto inuu Ilaahay uga dhigo okay mid kale waxaan idin sheegayaa ninkan gabadhan wax weyn buu qabtay uu caawiyay Congress-ku campaign-keedii buu ka qayb gashay isna nin easy maaha anigu ninkay caawiyo Mareykan baa sheegaysa wuxuu doonaha noqdo wallahi waan guursan lahayd bilaad uu caawiyo nin because abaal buu ku leeyahay moqti qofkaaga caawiya ninkaas seedigeen waa soo dhaweynaynaa seedigeen waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay welcome soo dhawow dumaashi soo dhawow Axmed hadii calafkooda kala dhamaaday ilhaan waa qadarka Ilaahay waxba ma la inagu shaqo kuma leeyin waa xagga Rabbi ka socda Soomaad garan laakiin waan soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaa waxaan leenahay graduation ma leenahay
anigu waxaan leeyahay inantaas ninkaa guursatay oo ugu hambaliyey hambaliyo ayaanu dirayaa waxaan leeyahay ilhaaney hambaliyo baan ku leeyahay naadeer hadday guursatay bagay u guursatay naadeer baga fariid waa fariid you know why fariid weeyaan fariid waxay fariid u tahaan kuu sheegayaa way guursato life bay samaysatay she very nice hadday guursatay wax fiican bay samaysay nagarad maadaama inantaas wax fiican samaysay oo guursatay ilaahay mid khayr qaba ha uga dhigo mid khayr qaba Allah ha uga dhigo mid anfaca Allah ha uga dhigo yaa mid leef wanaagsan la qaadato Allah ha uga dhigo sawde please xagxagashada ka daaya walaal xagxagashada ka daaya iyo ma garanaysaa ceebaiska iyo 19 kana waxa u sameeynaysan 19 joojiye inaadeer ay malaha way guursatay hambaliyo ilaanay waxaan ku leeyahay inaadeer keep going congress-kaad nageysay Soomaali bad magac u soo jiiday excuse me hello excuse me mama You understand? Yeah. So, marka waxaan leeyahay hambaliyo ayaan leeyahay ma garateen hambaliyo ayaan leeyahay keep going baan ku leeyahay niyad jabin Soomaalidu dadka way caayaan maxay caayaan anigu waan guurkeeda cusub waan ku taageeraya because way freedom bay ahayd way madax banaaneed forever nin kasta ay guursato wadaniin baa guursan lahaa forever mid kasta ay guursato midun baa guursan lahaa sama calafkeedii ninkaas uu noqday waynu ku taageeranaa inanteena ma caayayno ma aflagaadeeno wax kama sheegayno ma fahanteen ayda joojiya iyo aflagaadada iyo ma garanaysaa Soomaaliya qofkiina caydaan qofkiina wanaagsan ee wax idinka dhigayna caydaan de waa la idinku yaqaanaa Soomaad garan ma caay kartaan xaloo caaya waxba yaan laga sheegin nanta nin baa guursaday ha loogu hambaliyeeyo taaseed loogu hambaliyeeyo ragda anigu waxaan rag oo dhan bay dhaantaa ragga bay dhaantaa bay inantan ragga cid kasta way dhaantaa because congress-ka bay gashay ma sha Allah raganimadeeda gilisay iyo fariidnimadeeda aniga ilhaani ma taqaano laakiin waa inan Soomaaliyeed weeye waa ilhaan Umar waa inan Soomaaliyeed adeer raganimadeeda geysay halkaas ma sha Allah iyo fariidnimadeeda qawde ilhaan Umar waanu hambalyeynaa anyway waanu hambalyeynaa waxaan keep going gurigaagu ku waaro if you are happy ku tahay ku waaro gurigaagu ninkaaga iyo gurigaaga cusub walaalo Ilaahay ku daayo caruurtaadana Allah ku kiib gareeyo odagaagii hore inankiina horena waa salaamayna anigu waa idin sheegay mar walba waxaan ka jeclaa guriga hore inuu dhisnaado laakiin haddii qadar alla dhacay kuma noqonayo hadalka qadar alla hadduu dhacay wixii ninkii inanteena guursatay happy ku tahay waynu ku taageeraynaa laakiin in la aflagaadeeyo in wax laga sheego I don't like in wax laga sheego ma doonayo hadalkeeda ilaa maalmahan oo dhan waan arkay waan hadalkeeda waan ka gaabsaday laakiin markaan laakiin in la yiri aan maqlay ninkii waa muslim ayaan ka hadlay markii la yiri ninkii waa muslim
waxaan leeyahay gurigiisa soo kordhay inanteena ninkaa guursaday ee campaign-ka la waday miyeedan arkaynin wuxuu la qabanayay campaign-ku la waday maybe waxa laga yaabaa ninkaas inuu wax weyn inantaa u qabtay soomaad garan marka dee way u abaal gudi qofka ku wanaajiyay ee ku magaranaysaa dee wax si fiican ku qabta forever Soomaaliya qasab maaha Soomaali inaad guursato maxaa Soomaali muxuu sheegayaa ka habli wada fureen muxuu sheegaa Soomaali natin waxba ma sheegayo ma fahanti Soomaali adeer Soomaaligu marka horeba inuu haysto weeyaan reerkiis marka uu la furo in laga daba hadlo ma gabadhii ma fahanteen gabadhii laga daba hadlo ma waxaan idin leeyahay anigu waxaan leeyahay Ilhaan waxaan leeyahay hees baan qaaday waxaan leeyahay dhageysta waatani dhageysta Ilhaani gubatahay gabadh qaaliya tahay Ilhaani gubatahay gabadh qaaliya tahay Kenya qurux lebaatahay gaari sharaf lebaatahay Kenya qurux lebaatahay gaari sharaf lebaatahay gaashaan dhigbaatahay gacantaydii midigiyo garabkaygii baa tahay gacantaydii midigiyo garabkaygii baa tahay Ilhaanay gobaa tahay Kenya qurux lebaa tahay Ilhaanay gobaa tahay Kenya qurux lebaa tahay gaari sharaf lebaa tahay gurigaagu kii jira geesibaa ku guursaday cidii gaadhi karino geesibaa ku guursaday cidii gaadhi karino garabo ku siiyo garabo ku siiyey waa in loo abaalgudo Ilhaanay gubaa tahay Kenya sharaf lebaa tahay Ilhaanay gubaa tahay Kenya sharaf lebaa tahay Kenya qurux lebaa tahay gaari sharaf lebaa tahay Kenya qurux lebaa tahay gaari sharaf lebaa tahay guulaysaan ku leeyahay gacantaydii midigay guulaysaan ku leeyahay gacantaydii midigay gabadhan ku faanay Soomaali gebigeed gabadhan ku faanay Soomaali gebigeed gabadhan ku faanay guulaysaan ku leeyahay gurigaagu kiinagi guulaysaan ku leeyahay gurigaagu kiinagi Ilhaanay gubaa tahay Kenya qurux lebaa tahay Ilhaanay gubaa tahay gaari sharaf lebaa tahay gob Soomaali baa tahay gurigaad ku dhalataan gaajo laga dareemayn
gurigaad ku dhalatan gaaja laga dareemay gacalkaygii baa tahay gacantayda midigiyo garabkaygii baa tahay gacantayda midigiyo garabkaygii baa tahay ilhaanaygu baa tahay Soomaali gebigeed gabadhay ku faantahay Soomaali gebigeed gabadhay ku faantahay gaashaan dhig baa tahay guulaysaan ku leeyahay geesi baa ku guursaday garab buu ku siiyey waa in loo abaalgudo geesi baa ku guursaday garab buu ku siiyey waa in loo abaalgudo aroos loo gangaama galbiisiyo mashxaradiyo aroos loo gangaama Soomaali gebigeed gabadhaan ku faanay guulaysaan ku leenahay gurigaagu kiinagii guulaysaan ku leeyahay gurigaagu kiinagii ilhaanaygu baa tahay goob xariira baa tahay ilhaanaygu baa tahay goob xariira baa tahay gaashaan dhig baa tahay Soomaali gebigeed gabadhay ku faantahay Soomaali gebigeed gabadhay ku faantahay gaashaan dhig baa tahay guulayso quruxey